dadka waxaan halkan uga sheegayaa snaabkay ku jira marka la idin dhaahdo wadan aad ka imanasaan ee la idin ku yiraahdo alaaba la idin dhiibaya dad iyo ilaahay foojignaada ninba alaab ii soo dhiibanay reer Bristol jooga oo igu yiri beer kaba ii soo qaad laba beero kaba walaal ii soo qaad oo ibariyay waxa la ii soo dhiibay laba kabood oo lagu guray waxa la wixii jaad magaalada waka jaadkii magaalada joogo dhan ayaa kabihii la igu soo guray dhexdii baa laga saaray markaysaan gundis baa lagu wareejiyay waa nin xunaabi wasoo reer Bristol oo reer gadiida baa la yidho Bristol jooga abul fucking fine you motherfucker yo adoonaysiina la xidho ana detailska gabarta ka sheegay dhiladii ku dhashay was maanta dhan buu lahaa kaba ii soo qaad waa anigii adiga ku dheh aan ku yimaado faleek kab kastaaba sidii u buuxdo aksay u buuxaan waka is ilaaliya dadka alaabta idin dhiibaya kareem haday idin dhiibana ka soo qaadina 10 haydii noqoto 10 wixii igu dhina kabaha yaan la kala furfurin bal kala waa disable yaa xidha Clarix ba ku yaala wadanka yaa xidha waxan dadka muxuu haystaa meen istibrihiin faq baan ka siiyay fucking ka uraya kabiis السلام عليكم maanta xaga waxaan ka sheegayaa wax muujiso la igu dhacay airport kan joogo waan dhoofayay time man helin aan ku macneeyo inaan aanu ilmaadeer inaan nahay moodayay oo family friend xitaa naho walaalkii la saaxiiba oo hadi habeen qof wanaagsan oo snapkaygu jiray ayaa igu dhashay walaal goormaad imanaysaa waanu sheegay maalintii wiilkayga 12 September baan imanayaa baan ku ori wuxuu igu dhaala badii soo qaadaysaa walaal afarta ishu imeermeerinayay aan kula walaashadadaydu waan xidhanayay macnaha alaabti miyaan ka imaadaa inankaas maalin kasta wuxuu igu lahaa walaal bari baa lagu keenayaa inankii baa wajaala ku maqan haddana berberu tagay haddana caynkan waa kaba ii soo qaad buu igu lahaa haye baan ku ori maanta markaan baxayay baan kula walaal kabahayga waan ka imanayaa because the time ba ma jiro alaabna ima soo wadid wuxuu ku dhahay walaal maan ogeyn in reer gadiida oo reer Bristol ayaa iskala kabaha waxaan ku iri laba mid soo gal ninka reer gadiida reer Bristol inaan sheegto magaciisa saddexan ee meesha la yeelay cadayntiisa inaad adiga hayso inaan adiga ku qabsado ma reer gadiid baa jira ma reer Bristol jira kaalax dhalay isagoo inaan kaana idin sheegay sawirkiisa idin soo dhigaya message-diisa idin soo sawiraya waxa la Ahmed Abdul Qadir wa Abdul Saad wa reer Kaadif wa adeerkay macallaa bariyan garaac dhalayaan hooyadii iyo walaalihii ba shalay Hargeysa ka yimiday yaa weegii hore ay Hargeysa ka yimaadeen aniga hadda cadaawadii qabta Ahmedow ii soo badhadhina adeer nacas dhalay baa taaniga ii soo badhadh hooyada iyo walaashaaba u soo dhiban lahay jaadka ku mirqaamisay doonaso iimaanka laga qaaday aabaha wase inaad aniga xitaa doonaso igu baqtiyaa nasiib samaha hooyada maxaad ugu dhiban weyday walaasha maxaad ugu dhiban weyday hablihiina maxaad ugu dhiban weyday aabahaaba soo baxaya anbaba yimi maxaad ugu dhiban weyday taaniga inaad shirqoolaynin way kula go'day aniga waxba hay barin nink alaabtaadina CID ga poliiska Hargeysa haysa poliiska CID ga nu dhiibay bitch baa tahay nacsiyow marka bili aadanow cid waxa aaminina alaab waxaan qof bili aadanow sidii bartii baan ku daadiyay bartii amba kareem ii soo dhiibo amba nacnac qori ii soo dhiibo amba beer kabaayo kale ii soo dhiibo shay kama sido Hargeysa alaabtii bili aadanka dhan kaga yimiday samad garan anigana ilaahay baa ila jiray I was so innocent daacad baan ahaa samad garanin qofna kama sheegsanin wixii soo dhiibayo laakiin waxa soo dhan idinku sheegay number 1 fadeexada dila doonaysay ceebta dila doonaysay iyo fadeexada la wareegisay aanaa ku kashifaya bari baad qof kale ku samaynaysaa hadan maanta idhaahdo waa in adeerkay waa nin Abdul Saad hayo ilaafta ku garaacdo kuma garaacanayo halkaasaan ka sheegay sawirkaaduna halkan ku xiga message-da isoo dirteen xagan aan dhigayaa bili aadanku ha ku ogaado hooyada bad xidhilad walaasha bad xidhilad aniga doonaysa inaad xidho no way marka walaalayaal iga dambeeyo qof bili aadanaha aamini qof bili aadana shadadaada waxaad adigu hubto oo ku xalaalo shilinkaaga ka soo baxsatay ogtay meeshu ka yimiyo meeshu ku dambaynayo ayaan idin kula talinayaa alaabtiina qaata qofna waliba ku dhajiya qof la'aan haba ku bixina balaayada maanta dhacday waydun arkaysaan cid idinka sheekeynaysaa ma jirto
كودة كي حماية إيه كانينا ساد بولها ساد نمبر بولها كاسان كشرية أحمدو كاسمان تهلكو قلات كشكين الساعة عد كستوانا قانا هرقيسة وذا اللينكس بان كله يحي CID دا المركبة ولا هادلي شاهدكي يلا مركي ساد كله يقصو قراعي إيا كبيهي با حفيزك CID دا يالان إيه هرقيسة يقانا الله ديل قرينيا ولا سوهي ليا لمبركيسي وساد لنا هالكا يديس بصاري waxa kale waxa iga daran ninkaasi snapkiga la hadlayay markuu noqday inuu connection ka isku xidho oo aan alaabtiisi soo qaado walaashi oo ka timiday Hargeysa oo ayaan dhaweyta timiday ayuu lambarka WhatsApp-ka ku lahayd lambarkii Hargeysa Soomaaliland aha ayuu igala soo xidhiidhay markaas uu yiri lambarkani waa lambar Soomaaliland oo walaashay sidato ayuu igu yiri markaas aan yaabay war walaal Axmedo Hargeysana ma joogtide lambarkan adiga soo garaacday WhatsApp-ka Soomaaliland waa maxay markaas uu yiri walaashay waa telefonkayga Hargeysa la tagtayo maxay haydayaan aan ka isticmaalaya lambarkayga telefonkayga markii soo celisay aniga caruur buu haystay inaan isku birahay oo dhaamahay anu waan qoslaa oo waan sheekeeyo waan xaraabeeya laakiin walaal aqligaygu kaaga uu ka badan yahay dhinacso uu ka badan yahay diligu dhalay xaraanta lagu dhalay in lagu xidhin la xidha doon saada xidhmi doona samad garanin marka waxaad qoto dheer ka soo shaqaysay ba kula go'ay